الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نمو عن أوناسن داود يالي ذي الهانتين بقصة دوادا سومالي تي في مقالة بوساسو داود يالوا في نمو 4 تاريخ لأنكم بيغن تايليحية توانك بيشتا صدحاد لبداكم لبعد سنة كودا داود يالوا حوارك في نمو دلس عسين دوناني ومحمد عبد العزيز سعيد نوح قضبضا ودور كرون وركنا في نمو حاكم ذا ururkaasi al-shabaab oo muddo kooban kula wareegay degmada Mahadai. Taliyaha ciidanka xoogga dalka oo sheegay in uu wili socdo howlgalka Torotoro. Shabaab oo meel fagaara ku toogatay 4 nin oo midkood uu ahaa ganacsade. Diyaarad sidii talaalka COVID-19 oo ku soo degtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Daawadayaal kuwaasi waxay qodobada ugu door karoon warkeena fiidnimo haatan ku soo dhawaaday oo faahfaahsan. ururka al-shabaab ayaa shalay galabnimadii weerar culus ku qaaday degmada Mahadai ee gobolka Shabeellada Dhexe. ciidamada dawladda ayaa iska caabiyay ururka al-shabaab ee weerarka soo qaaday inkastoo markii uu dagaalku kululaaday ay isaga baxeen degmadaasi qaarkoodna ay tageen xerada ciidamada Amisom ay ku leeyihiin duleedka degmadaasi. ururka al-shabaab ayaa saacado ku sugnaa degmada Mahadai iyadoona la sheegay in xaafadda kacaanka ay kula hadleen qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo sheegay in shabaabku ay dib uga baxeen degmadaasi haatan ay degmadu tahay mid degan. ciidamada dawladda ayaa caawa dib ula wareegay gacan ku haynta degmada Mahadai oo qiyaastii 66 kiiloomitir jirta magaalada Jowhar. gudoomiyaha degmadaasi Mahadai Axmed Xuseen Afrax ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladda degmadaasi ay caawa degan tahay lagana difaacay ururka al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday sida uu yiri. gudoomiyaha ayaa tibaaxay inaysan jirin cid wax ay ku noqotay weerarkaasi isla markaana aanay ku cusbeen weerarada al-shabaab. sidoo kale ururka al-shabaab ayaana dhankooda ka hadleen. taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa sheegay in ciidanka commandoska Danab ay saaki gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ku fashiliyeen deegaanka Torotoro ee gobolkaasi Shabeellada Hoose xilli ciidanku ay howlgal ka wadeen deegaankaasi. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa tilmaamay in qofkii waday gaarigaasi kaliya uu ku dhintay qaraxaasi ay ciidanku fashiliyeen. xoogga commandoska Danab oo xalay ka ruqansaday garoonka Belidogle ayaa howlgal ku tagay deegaanka Torotoro halkaasi oo gobolkaasi Shabeellada Hoose waxaa lagu fuliyay howlgallada ugu badan ee ka dhanka ururka al-shabaab. Yusuf Raage oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa xusay in howlgalku uu weli socdo lana baadigoobayo al-shabaab. dhanka kale al-shabaab ayaa sheegatay in ay beegsadeen kulanyo ay la socdeen militariga Soomaaliya iyo ciidamo ay ku sheegeen in ay cadaan isla markaana ay gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. hase yeeshee wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa ciidanka xoogga dalka ku amaanay inay ka hortageen qarax la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka Muqdisho. diyaarad ay leedahay hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa maanta talaalkan ka soo dejisay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaaladaasi Muqdisho. wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan iyo xubno ayaa talaalkaasi kula wareegay garoonka Aadan Cadde. talaalka ayaa dalka loo keenay in looga qayb qaato dadaalada looga hortagayo xanuunsidaha COVID-19 oo dalka dib ugu soo laba kacaleeyay. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay talaalkan oo ay sameysay shirkadda Oxford AstraZeneca uu ka kooban yahay 300,000 oo xabo looguna talagalay shaqaalaha safka hore. war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ayaa looga mahadceliyay cid waliba oo gacan ka geysatay in talaalkaasi dalka la soo gaarsiiyo. al-shabaab ayaa galinkii dambe ee shalay waxay fagaaro ku yaala deegaanka Ceel Cad ee gobolkaasi Gadoog ku toogteen 4 nin oo ay basaasnimo ku eedeeyeen. dadka ku dhaqan deegaankaasi oo 60 kiiloomitir u jira magaalada Garbahaarey ayaa isugu soo baxay fagaarihii uu dilku ka dhacay. qaadiga maxkamadda al-shabaab ee gobolkaasi Gadoog ayaa sheegay in ragga ay u basaaseen ciidamada Soomaalida iyo kuwa kale ee shisheeyaha ee dagaalka kula jira. qaadiga ayaa magacyada raggan ku kala sheegay Xaaji Aadan Duble Xasan 59 jir, Axmed Cali Dhuxul 50 jir, Cali Cumar Axmed 42 jir iyo Ibraahim Horow oo 25 jir ah. Xaaji Aadan Duble Xasan ayaa maleeshiyada al-shabaab 3 sano ka hor
kasoo qabteen degmada Saako ee gobolkaasi Jubbada Dhexe. Ninkani ayaa ahaa ganacsade si weyn looga garanayo deegaamadaasi iyadoona 3 sano ugu dambeysay uu u xirnaa ururka Al-Shabaab. daawadayaal waxaa intaas nagu warkan fiidnimo ee aad kala socoteen Somali TV. daawadayaal waxa warkan la socodsiinay anigoo ah Maxamed Cabdilcasiis Siciid Nuux. intaan ku kulmi doono warkan war lamada waxaan kaga tagnaa sidaas nabadgelyo.